kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay mucaaradka oo kulan xasaasi ah ku yeeshay guriga Rooble kadib fashilkii wadahadaladii kala dhexeeyay Villa Soomaaliya iyo dhanka kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qaaday tallaabo ka cadhaysiisay mucaaradka kadib markii uu iska diiwaangeliyay doorasho qof iyo cod ah iyo kulan xasaasi oo u socda guddigii matalayay Xasan Sheekh Maxamuud iyo mucaaradka. Hogaamiyayaasha mucaaradka ayaa kulan ku yeeshay hoyga ra'iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rooble kadib markii ay natiijo la'aan ku soo dhammaatay wadahadaladii kala dhexeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Sida ay ogaatay warbaahintu, kulanka ayaa waxaa looga arrinsan doonaa tallaabooyinka xiga ay mucaaradku qaadi doonaan haddii wadahadaladii si rasmi ah ay u fashilmeen. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo Axaddii shir ku yeeshay Villa Soomaaliya ayaa ku kala tegay kadib markii lagu guuldareystay in la isla meel dhigo qodobo muhiim ah, gaar ahaan hirgelinta nidaamka doorashooyinka qof iyo codka ah. Guddiga wadajirka ah ee loo xilsaaray diyaarinta war-saxaafadeed la filayay ayaa la hakiyay kulamadoodii. Si kastaba, rajo yar ayaa laga qabaa inay gaadhaan dhinacyadu heshiis, maadaama khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labada garab uu sii xoogaysanayo. Kooxda Villa Soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si gaar ah isugu mari la cutubka afraad ee dastuurka oo wax ka beddel lagu sameeyay, iyadoo mucaaradku ay dalbanayaan in laga laabto wax ka beddelka cutubkaas. Mucaaradka ayaa madaxweynaha ka dalbanaya tanaasul dhab ah oo aan leexleexad lahayn si ay u guuleystaan wadahadalada loona soo gabagabeeyo shirkan oo daba dheeraaday. Si kastaba, ismariwaaga jira ayaa sii iftiiminaya kala fogaanshaha siyaasadeed oo sii ballaaranaya xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guur ah oo dhowaan laga hirgelin doono doorasho.